قرابة حريرين تيدو وحين لنا مركبة من الدين هذا بوا قورمة dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan aadna xidhiidhiso nacam taas waa sax waa balgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyeen xidhiidhintii isagaa dambaabay laakiin adiga way kugu leeyeen maxay xidhiidhintii walidalik ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwasilu bilmukafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaal guday maaha buu nabigu yidhi ninka abaal guday dee tolka markay isku fiicantiina yanay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiya habar wadaag iyo dad qaraabo isku dhawaatiina wax istartaan dee waad abaal guday markaa wixii lagu tarun baad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nabigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalaha buu nabigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamku wuxuu farayaa dadku bulshadu inay isku xidhnaato dawaa'ir kale dambaysana way isugu xidhantay daa'ira aluulaa naftaada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidiinta waxaa ku sii xiga markaasi qaraabadii waxaa ku sii xiga jaarkii waxaa ku sii xiga masaakiintii iyo agoontii iyo dadkii kale ee ducafaa lmujtamac waxaa ku sii xiga bulshada dhammaanteed waxaa ku xiga almukhaalifiin kuwa xataa diin ahaan aydan isku waafaqsanayn xidhiidhkaa loo samaynayana waa xidhiidh kelima tayiba waa sadaqa taladu waa sadaqa ظلمي قاعد كتشوج سوا صدقة مال قاعد سوا صدقة يعني وحلالي وحنا بقول صدقة كل شيء جاي يردمي وحي قالي كرانين نقدان محي صلة الرحم